كما كوكو دفتي بالقياس سي شيك كان مركا حيقا كوكو دفنتونا جوجيا ayaan leeyahay horkeena gudiga isaga saco guddigii diinta ee madaxda ahaa ayaa kulmay si ay ciise su'aalo u weydiiyaan noo sheeg adigu ma masiix baad tahay haddii aan idiin sheego ima aaminaysaan oo haddii aan idin su'aalana iiga jawaabi maysaan laakiin hadda kadib wiilka aadanuhu waxa uu fadhiisan doonaa gacanta midig ee ilaaha weyn adigu marka ma tahay wiilka ilaah adigaa yidhi inaan ahay isaga awooda siiyuusaa annaga qudheenna ayaa maqalnay waxa uu yidhi waxaan u geynaynaa isaga bilaatos laga kaxeeya isaga oo waxay u horgeeyeen Pontius Pilatus ninkii ugu xun madaxda Roomanka oo kaliya ee mas'uulka ka ahaa daldalidda kumanaan qof maxaad halkan ka soo doonteen saacadan subaxnimada ah waxaan soo qabanay ninkan oo dadka iyaga rogaya isagu wuxuu qalalaasa ka abuuray suuqa macbudka maxay noqon doontaa qaabtiisu xukun isaga anigu ma arko sabab aan ninkan ku xukmo waxaan ku helnay eed isaga oo iyaga u sheegaya inaanay canshuur siin boqorka isaga oo isku sheegaya masiixa boqorka boqor adigu ma boqorka yuhuudda baad tahay waa sidaasi aad tidhi wuxuu ka dhex bilaabay galilii iminkana halkuu yimid oo galilii ah ninkanu ma reer galilii baa xaaladdaas waxaan ku wareejinaynaa herodos isagu weli yerusalem ayuu dhex jooga u geeya herodos ayaan ahay baatiri waa kuwa maa kuwaad xirtaada ku sheegtid kuwo badan ayaa sheegay inaad mucjisooyin samaysay wax ma ii samayn kartaa sayidow isagu wuxuu ku qaldahayay dadka oo dhan isagoo isugu yeeraya boqor ma ninkan baa boqor ah adiga boqorow aad ugu dhufo isaga bilaatos ku celiya isaga kana waa gobolkiisa
ninkani waxuu dhimasho ku galabsado ma uusan samayn haddaba anigu isaga waan karbaashayaa oo waan iska sii daynayaa adigu waxaa kugu qasaba in aad xafladda ciidan nin noo sii daysid noo sii daa annaga barabas haa oo kanna ha tago haddana sii annaga barabas halla qodbo isaga halla qodbo isaga adiga iyo adigu isaga karbaasha maxaad sugaysaa adiga bilaatosow isagu waa ciise maxaa isaga sidan ugu siraynaysaan isaga daaya isaga waa masiixa isaga wuxuu sameeyey ma jiraan sare u qaada adigu magaca simon kirer kunay mudane kala inta ka gooya xadka adigu qaad soco loqo iska daaya adiga ayaan ku ooyana rabbiyo ku ooyana cabkan cab rabbiyo haweenkiina reer yeruusaalemo ha ii ooyina aniga laakiin idinkii carruurtiinna isu ooya waayo haddii waxyaalahani oo kala dhacaan marka geedku cagaaran yahay maxaa dhici doona goorta u qalalo ilaaha ku caawiyo waan ku tukan doonaa dhaqaaq dhaqso ina mari dhaqso iminka adigu soco dhaqso waa soconaynaa dhaqso si dhaqso adigu iminkan waa soconaynaa waana soconaynaa
saamax iyaga rabow waayo iyagu garanayaan waxay samaynayaan kuwo kaluu badbaadshay ha isbadbaadsho isaga haa adigu isbadbaadi haddii aad masiixa tahay haa ka soo tag isku tallaabta naatus mid ka mida mucjiseenkaaga oo ciise isku tallaabta ayaa lagu qodbay laba tuug dhexdeedii si ay wax sii sheegiddu u buuxsanto sida nebiyaashii ilaah sii sheegeen 100 sanno ka hor tani mara caadi ah ee la arki jiray ma aha oo calaamad ayaa la dul saaray madaxiisa taas oo loo akhrinayo sidani kan waa boqorka yuhuudda isbadbaadi adigu haddii aad tahay boqorka yuhuudda masiixa isbadbaadi adiga iyo annagaba adigu miyaan ilaahay ka baqayn oo isagu wuxuu helay mid xukunkaaga la mid ah laakiin isagu wuxuu qalad sameeye ma laha i xasuusa aniga ciisow markaa boqor ahaan soo laabato waxaan kaa ballan qaadayaa in maanta aad jannada igula jiri doontid aniga waxay ahayd duhur laakiin gudcur ayaa qarriyey dhulka oo dhan muddo 3 saacadood ah ilaa saacaddii 9aad daahii macbuudka ayaa bartanka ka kala jeexmay
gacmahaaga ayaanu dhiibayaa ruuxayga. haddaba taliyihii askartii goortuu arkay waxa dhacay ayuu isagu ilaah ammaanay isagoo leh, ammaani ha u ahaato ilaah, hubaal ninkani waxa uu ahaa nin xaqah. yuusuf kii reer armaataaya nin xaq ahaa oo ka tirsanaa guddiga diinta oo aan ku raacsanayn falkan kuwa kale ayaa fasax ka helay bilaatos inuu meydka ciise dhex dhiga qabri inta aanu bilaabin maalinta caabudaadda ka hor gabaldhaca. nacafi annaga anagu waxaanu raacaynaa jidhka rabbigeega. kulligiin soo dhowaada, laakiin kaalaya sabtidii ayaa ina soo haysa. aroortii hore subaxnimadii axadda ayay iyaga qabriga yimaadeen iyaga oo wada dhir udgoon oo ay soo diyaariyeen. idinku maxaad ka nool ugu dhex doonaysaan kuwa dhintay? halkan ma joogo, laakiin waa la sara kiciyey. xusuusta waxa uu isagu idinku yidhi markii uu galiiley dhex joogay, wiilka aadanuhu waxaa loo gacan gelin doonaa niman xun oo isku tallaabta lagu qadbi doonaa, oo maalinta saddexaad ayaa la sara kicin doonaa. jidhkii rabbigeenuna ma oolin. yaa jidhkii rabbiga waa la qaatay. oo laba nin ayaa noo muuqda, malagyo ifaya sida qoraxda, oo waxay nagu yidhaahdeen, maxaa ka nool uga dhex raadsan kuwa dhintay? waa run. naamin annaga halkaas bay joogeen. idinku taga oo soo arka, qabriga u madna, rabbigeenu waa la qaatay. butrosow, naamin annaga.
oo ciise wuxuu u muuqday laba xer ah oo iyagoo faraxsan ayay ku soo laabteen kuwii kale waa dhab rabbiga waa la sara kiciye isagu wuxuu muuqday simon annagu isaga maanaan garanayn ma aha waddada korkeeda laakiin markii kimista jabiyey kadib ayaanu garanay emos waa yoob sida halkaas u tagay nabadi ha idinla jirto maxaad la arbushantihiin maxay shakiyadanu qalbiyadiinna ugu jiraan fiiriya cagahayga iyo gacmahayga oo arka inaan anigay ahay itaabta oo waad ogaan doontaan waayo ruuxayguma lahan jir iyo lafo sidaad u malaynaysaan kuwanuna waa waxyaalihii aan idinkula hadlay intaan idinla joogay in wax waliboo aniga igu saabsan oo lagu qoray sharciga muuse iyo qoraallada nebiyada iyo zabuuradda ay rumoobaan waa sida qoran masiixu waa inuu silcaa oo uu ka saro kacaa dhimashada maalinta saddexaad oo magaciisa farriinta toobadkeenista iyo cafiska dembiyada waa in lagaga wacdiyaa quruumaha dhammaan laga bilaabo yeruusaalem idinku waxaad markhaati ka tihiin waxyaalahan iyo aniga qudhayda oo idin dul keenaya ballanka aabbahay igu suga magaalada ilaa ay quwad idinkaga timaado xagga sare ilaa haydin barakeeyo oo haydin ilaaliyo xoog kasta aniga waa laygu siiyey samada iyo dhulkaba taga haddaba oo bara quruumaha oo dhan idinka uu ku baabtiisiyey iyaga magaca aabbaha iyo kan wiilka iyo kan ruuxa quduuska idinka oo baraya inay ilaaliyaan wax kasta oo aan aniga idinku amray oo ogaada anigu waan idinla jirayaa wakhti kasta xataa dhammaadka dunida آمين xabaashii ciise masiix lagu aasay way marnayd 3 maalmood ka bacdi ayuu ciise masiix ka soo sara kacay dhimashadii maanta waa nool yahay ciise masiix naftiisii lagama qaadin isaga laakiin sidii naftiisuba yidhi anigu waxaan ahay sara kicidda iyo nolosha ku alla kii aniga i rumaystaa inkastoo uu dhinto haddana wuu noolaan doonaa sayid ciise masiix wuxuu kaloo lahaa awood waxbarid taasoo adduunka si weyn ugu reebtay raadraac oo sida qaalibka ahna saamayskeedii aan aragno maantadan la joogo bal walaalayaal aan dib u jalleecno qarniyadii la soo dhaafay away afyahaniintii kibirka badnaa taliyaashii aqoon-yahaniintii sayniska filosofiyiintii iyo hoggaamiyaashii diinta waxay ku noolaan jireen dunidan wayna dhinteen laakiin sayid ciise masiix weli waa nool yahay weliba walaalayaal sayid ciise masiix waa nooca keli ahaaneed oo wax la mid ah uusan jirin oo abidna la soo arag dhalashadii ciise masiix waxay ahayd nooc gooni ah maryan oo bikradda ayaa si mucjiso leh u dhashay ciise masiix noloshiisu waxay ahayd khaas waxayna lahayd dabeecad ilaahiyan ah wuxuu sameeyey mucjisooyin waaweyn oo badan oo qofna aannu weligii samayn wuxuuna ahaa qofka keliya ee dembila'aan noolaa waxbariddiisu waxay ahayd khaas wuxuu siinayaa jacayl dembidhaaf iyo hab nololeed oo cusub dhammaan kuwa isaga u aqbala ama u aamina sida badbaadiyahooda iyo sayidkooda meel kasta oo waxbariddiisu gaartay rajo cusub iyo ulajeeddo cusub oo nololeed ayaa timid dhimashadiisu waxay ahayd mid khaas ah 2,000 oo sannadood ka hor ilaah waxa uu soo diray ciise masiix
si uu u noqdo kafaaragud dembiyada dadka oo idil sara kiciddiisu waxay ahayd mid khaas ah 3 maalmood kadib dhacdadii ugu yaabka badnayd taariikhda ayaa dhacday ciise ayaa ka soo sara kacay dhimashadii markasta xusuuso ballanqaadkiisii quruxda badnaa ama yaabka lahaa markii uu lahaa weligay idinka tegi maayo oo idinma dayrin doono anigu wakhti kasta waan idinla jirayaa xataa dhammaadka dunida Thank you.